gabadhaa waxay tiri waxaan ku riyooday daanga mise salool. Gabadhaa xigta waxay tiri waxaan ku riyooday anoo meel dheer ka soo dhacayo weyna igu soo noqnoqoto. Qofka xigo gabadhaa waxay dhahaysaa waxaan ku riyooday anigoo wiilka xiriirka leenahay anagoo meel fadhino ayaa meeshii korontada maa tagaysa maaqaana laakiin hal mar mugdiya isku bedelaysaa. Nambarka 4 gabadhaa waxay leedahay waxaan ku riyooday ilmo aniga aan dhalay oo iga lumaya riyada dhexdeeda. Ilmahaaga oo lumaya micnooyin aad u badan ay tilmaamaysaa. Nambarka 6 isla gabadhaa riyadeeda haddaan dib u sii raacno riyooyinku way isku dhowdhowyiin wayna isku shabahaan wayna isfasirayaanoo maxay leedahay markale waxaan ku riyooday cunugeyga oo riyada dhexdeeda suuxayo. Xaajir inta muhiimadda fasir u baahanaa kala baxaya. Nambarka 6 mise 7 maaqaan meela maraaye waxay kaloo tiri gabadha waan sujuuday iyo suurat al-faatixa aqrinaya. Nambarka 8 gabadha waxay leedahay waxaan ku riyooday ilkeyga soo daadanay. Nambarka 9 gabadha waxay tiri baranbara ayaa i dhibtaan ku riyooday wayna ugu soo noqotaa. Gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday roob ayaa da'ayay ana waxaan aqrinaya qur'aan. Maasha Allah tabaarakallah. Waa riyo aad u wanaagsan. Nambarka 11 waxay tiri neef ari ah ayaan ku riyooday igu daba qaylinayo qaba markaas dhaan awoodin. Haddana neef kale orgi ah waxay tiri waxaan ku riyooday sida qoraalkeeda ku aragtaan ilmo caruuriga. Gabadha waxay tiri waxaan ku riyoodaa ninka aan kala tagnay mar walba riyo ku arkaa